إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسو جناي كتابك تفسير كقرآن كريم كاها ودرسيني بقل تضبات يكو ونغب اللابان يا آيات فرطن يا فراد من سورة الأنبياء قال الله تبارك وتعالى بل متعنا وان أراحين إلهي هؤلاء كوان مشركين تا إيا وآباهم أبيالكود حتى طال إلى قدر عليهم كركود العمر عمرقي أفلا يرون ميسنا كين قالوا أننا نأتي الأرض بلك إنانو إيمانينو ننقصها حالا أنكسر نقصامينينو من أطرافها طرفيال كيدا أفهم أيقامية الغالمون كوات كان إياه قل وحاتر النبي صبانا إنما وحكا لماهن انذركم وانين اندقيا بالوحي وحيا انكو قدقيا ولا يسمع من مقلان الصم دقوليالك الدعاء يرمض من مقلان إذا ما ينذرون مركلو دقيا ولا إن مصتهم والله إن مصتهم حتى يتابطوا نفحة كر نفحة من عذاب ربك عذابك سحقي سكاهاتي لا يقولون وحيليهن يا ويلنا هلاكني إنا أنه كنا وحنهاني ظالمين كوا قردرا ونضع ودقيناه إلهي الموازين ميزان يالك القسط عدالة ليوم القيامة في يوم القيامة مالنت قيامها أيان دقينا فلا تظلم نفس نفل الظلم ما فلا تظلم نفس نفلق الظلم ما شيئا وإن كان عملك هدو هذا مثقال حبة من قدر لك حبة من خردل جيد كخردل كالليراء أتينا وأن لا إيمانينا بها بحبة الخردل حبة خردل كوان لا إيمانينا وكفى بنا أنك كفلان إلهيري حاسبين حالا أنها يكوى وحسابية الله سبحانه وتعالى وقلنا ورمى مشركين تا وحكديي كوحن باري ضلالك إني كسقنادان الله نلاشي الدنيا دا أقول راحيي نلاشي الدنيا أيها الله أقول راحيي وإسكاقنم عايستين وقتقيا ديرادي markaasay waxay isku arkeenba inay toosan yihiin oo mudan yihiinba in loo raaxeeyo marka taas ay kadiday ilaahay taasna macnaheedu waxay tahay nicamta iyo caafiyada rabbul caalamiin ku kadin dadarato caafimaad oo haysta dhaqaalaha ugu toosan yihiin walwalaan adduunyada xageeda ka calaamad uma ahan ilaahay inuu raali kaaye ma uu ahan calaamad tusayda ma ahan waxa dhici karta inayba tahayba istidraaj waxa la yiraahdaa qof aan waxa weeyaan loo seeta dheeraynayo asagoo qaldan ayaa tartiib waxa la rabaa inuu cadaabka ugu dhawaado tartiiba loogu dhaweynaa halaaga iyo cadaabka marka waa arin aad u qatar ah hadii aad aragto adiga lunsan inaad hadana nicam ilaahay iska haysato waa arinta ugu qatartan istidraaj ah la yiraahdaa waa dhaweyn waa qof cadaabkii tartiib loogu dhaweynayo waa qof cadaabkii tartiib loogu dhaweynayo marka waa arin halaag adiga lunsan inaad iska nimcaysan tahay إلى وقل سبحانه بل متعنا ونراحينا هؤلاء كوان مشركين تا إيا وآباهم أبيالكود حتى طال إلى كل راضي عليهم كركود العمر عمرك إلى كل راضي مدرس كالنورادين أفلا يرون ميسا أركين إلهيري أنك نأتي الأرض ملك إنانو إيمانينو ننقصها حالا أنكسر نقصامينينو من أطرافها طرفيالك حالو لكيدا لذا معنى لغو فصيرا معناها كوباد waxa weeyaan waa macnuhu Hasan al-Basri ku fasiray tabiicigaasi aayadu waa waqtiga islaamku izoobay soo degtay waa madani way macnaheedu markaas waa waqti islaamku izoobay oo nabigi sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisi ilaahay uu futuuxaad ka siiyo buldaantii kufaarta midba maalin loo furayo
marka waxa la leeyahay kufaartii quraysheeday dalaalkiina miyaadnan ka baraarugayn soo uma jeedaan ayadoo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala buldaantii kale kaalada aheed midba maalin ilaahay muslimiinta u furayo midba maalin la halaagayo muslimiintu ilaahay u furayo maad ku cibro qaadataan idinka wayn ku soo socotaa taas waa haddii la yidhaha marka aayaddu waa madani macnahaasu daahir maahan suuraddu waxa weeyaan waa suura makiya sidaas darteeda xaafid wuxuu yidhi wa axsanu maa fusira macno lagu fasira kan ugu fiican waxay tahay walaqad ahlaknaa maa xawlakum min alqura wa sarafna alaayaati lacallahum yarjicuun oo suuratu laxqaaf aan ku soo marnay aayaddaasay aayaddan ku macnata macnuhu marka wuxuu noqonayaa quraysh waxay degan yihiin makay degan yihiin dhanka koonfure waxaa ka xiga waxa weeyaan dhulalkii lagu halaagay reer caad oo axqaaf ayaa ka xiga dhanka waqooyi iyo dhanka shaamna waxaa ka xiga dhulalkii lagu halaagay reer hamuud dhulalkii lagu halaagay qowmuluud ayaa ka xiga idan waxay tahay marka darafyaalka dhinacyadoo dhan ummadihii sidii noo kaleeto beeniyey rususha waa la halaagnaa ku cibro qaadataan ilaa ummadihii kale ee dariiqaan maray aad marteen haddii la halaagay idinna waxaa idin sugaya halaagii rasuulka ugu fadliga badnaayaad beenideen kitaabkii ugu fadliga badnaayaad beenideen rabbigay kuwii hore beeniyeenaad beenideen idan waxaad sugaydaan wixii kuwii hore ku dhacay darafyaalka marka waxa weeyaan dhinacyaalkao dhan wey magaalooyinka qoomamkii ilaahay beeniyey rususha beeniyey lagu halaagay waxay ku hareeraysan yihiin marka dhinacyaday ka wada xigaan koonfur iyo waqooyi ka xigaan macnahaas wey ayda macnaheeda sida uu yidhi xaafid afalaa yarawna gaaladu miyaysan arkaynin anna annaga na'ti larda dhulkii inaan u imaanayno nanqusuha xaala aan soo nuqsaamayna min atraafiha darafyaalkeeda oo buldaantii ku hareeraysnaa aan midba mar halaagayno taasoo uma jeedaan marka macnihii labaadna macnahaas ilaa wuxuu yidhi afahum lghaalibuuna mayagaa ah kuwii adkaanaya macnaheedu waxay tahay buldaantaas dadkii deganaa markay ilaahay ku kufriyeen oo shirki ku dhaceen waa halaagnay ayaga miyaa marka hadda markaan halaagayno iska kaana celina wey oo naga adkaana haddii buldaantii kaleba dembigaan markay ku dhaceen aan halaagnay ayaga miyaa kuwa adkaanaya oo iska kaana celinay ma jirto wey taasuna wax jira maaha allah wuxuu ihi subxaana qul waxaa tiraa suubane innamaa wax kale maahan undirukum waa idin digaa bilwaxyi waxyan idinkugu digaa tanna macnaheedu waxay tahay rasuulka waxaa la leeyahy waxaad ku tidhaahdaa war waxa aan idiin sheegayo caqli ma ahan waxay ila tahay ma ahan waxaan idinkugu digayaa waa waxyi rabbulcaalamiin ii soo waxyooday oo qofkii dembigaas galaa cuquubadaasu mudnaana qofkii sidaas yeelo dembigaas cadaabkaasu mudana qofkii wanaaggaa sameeya wanaaggaas iyo abaalmarintaas mudana war waxa aan idiin sheegayaa waa waxyi rabbulcaalamiin xaggiisa ka yimid maahan ra'yiga iyo caqliga qul innamaa undirukum bilwaxyi laakiin waxyiga waxaa ka faa'iidaystay qof dhegale qof qalbi fiican leh laakiin qof qalbiga ilaah tiray dhagaha ilaahay tiray waxyi kama faa'iidaysto ilaah wuxuu yidhi subxaana walaa yasmacu ma maqlaan asummu dhagoolayaalka adducaa'a yeermada idaa maa yundaruuna marka loo digayo laakiin dadka dhagoolayaalka ee ilaahay dhagaha tiray oo qaylada way maqlayaan laakiin samaaca tadabburin waintifaacin male dadka ilaahay qalbiga tiray kuwaasu ma maqlaan yeermada wala in masathum wallaahi allaan ku dhaartay in masathum hadday taabato uu ilaahay yidhi gaalada nafxatun layr ama sekar waxa weye nafxada waa urka oo waxa weye miskigoo kaleeta markuu qofka u soo karo a la yidhaha nafxa kar yar ama ur yar hadday taabato iska daa wax ka weyn nafxadaasoo min cadaabi rabbika rabbigaa cadaabkiisa xaggiisa ka ahaatay hadday intaasu taabato wax ka weyn iska daa wax yar hadday u soo karto cadaabka ilahay wax ka mid ah layaquulunna wallaahi waxay leeyihiin yaa weylanaa halaageeniyow haadaa awaanuki faxdurii waqtigaagii waa la joogahay meela jirtaba ka imow saasay leeyihin haddii xataa ay u soo karto cadaabka ilaahay in yar oo khafiif ah hadduu ka soo gaaro kaliya waxay ogaanayaan waqtigii halaagooda in la joogo markaasay leeyihin halaageeniyo waqtigaagii waa la joogahay noo imow nugu deg saasay leeyihin waa quusanayaan naxariistoo dhan ayay ka quusanayaan wala in masatum wallaahi hadday taabato ilaahay yidhi nafxatun layr amase waxa weyan kar ama ur nafxadaasoo min cadaabi rabbika rabbigaa cadaabkiisa xaggiisa ka ahaaday waxaa loola jeedaa shay yar oo khafiif hadduu u soo karo xataa layaquulunna wallaahi waxay leeyihiin gaaladu yaa weylanaa halaageeniye innaa annaga kunnaa waxaan ahaanay daalimiina kuwa gordaran oo cadaabka annagaa mudnay
macnaheedu waa maxay waxay qiranayaan dembigooda waqti aan qirasho wax tiray saas way macnuhu waxaa la rabaa dembigaaga inaad qirato maanta adoo caafimaadka qabo adoo nool adoo rajaynaya nolol markaana la rabaa inaad qirato laakiin markaad quusatood cadaabka alle aragto haddaad dembigaaga qirato khalaas weeyaan waa iska calaacal wax qiimaa male ilahay kiis qiima kama leh waxaa la rabaa maanta intaan caafimaadka qabno inaan dunuubteenna qiranno ilaahay dartiis uga tagno taas weeyaan ilaah wuxuu yidhi subxaana wanadacu waa dhigaynaa almawaasiina miisaanyaalka alqisda dawil qisdi ee cadaaladda u saaxiiba miisaanno cadaalad ah aan dhigaynaahu ilah yidhi subxaana liyowmi alqiyaama laba macnaa kuugu bannaan laamta bimacnaa fii ka dhig liyowmi alqiyaama fii yowmi alqiyaama qiyaamaha dhexdiisaan dhigaynaa qiyaamaha marka la joogo maalinkaasaan dhigaynaa taas waa macno macnaha labaad laamta sideeda u daa liyowmi alqiyaama liahli yowmi alqiyaama laakiin mudaafad soo qadari dadka qiyaamahan u dhigayna oo la xisaabina dadkaas dartood aan u dhigaynaa markaas taxliila laga dhigi liyowmi alqiyaamati liahli yowmi alqiyaama yowm alqiyaamaha dadka ehelka u ah dadkaas dartooda miisaan u dhigaynaa ilahay lagu kala saaro falaa tudlamu nafsu naf laga dulmi maa shay-an shayna hal shay laga dulmi maa oo hal xasanoy shaqaysatay weyme dembi aysan shaqaysanna la saari maa saas wey macnuhu hal xasanoy shaqaysatay weyme hal sayi-o oo aysan shaqaysan la saari maa intaasaa dulmigu ku imaan kara intaas ayuu dulmigu ku imaan karaa ilah wuxuu ihi subxaana wain kaana kanada isimkeed camalka u celi wain kaana alcamalu camalka qofkuu sameeyey hadduu ahaado mihqaala xabatin mir qadar le-eg mirtaasoo min khardalin geedka khardelka la yidhaah khardelka waa miro yaryar oo sisinta ka yaryar sisinta aad uga yaryare waa gedgaduudan yihiinoo dadkan oo maaragta gada geedaha oo dibulacshaabka kuwaas meelaha ay joogaan waa ku arkay meel asagoo ku daadsan miro yaryar oo gedgaduudan wey sisinta waa kasii yaryari marka haddii xataa camalka qofkuu sameeyey uu noqdo intaasoo kale maalinta qiyaamaha ilahay waa keena faman yacmal mihqaala daratin khayran yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara saas wey idan taas waxay noqonaydaa war dembi yuu kula fudlaa maykan wax weyn maaha haysdhihin maalinkaasoo kula cuslaa doona shay xasanaana ha yaraysanoo ha quusan oo haysdhihintan waxay kuu tarayda wax xasanahood samayn karto waa la samaystaa wax sayi-aadana lama yaraysto oo yaraan looma sameeyo ee waa laga carara ilah wuxuu ihi subxaana wain kaana camalku hadduu ahaado mihqaala xabatin mir qadarkeed mirtaasoo min khardalin geedka khardalka la yidhaaa ataynaa waa la imaanaynaa bihaa bixabati alkhardal xabadii khardalka waa la imaanaynaa wa kafaa binaa annagaa ku filan ilah yidhi naadaasa faacila kafaada waa tabaada la gelshay wa kafaa binaa annagaa ku filanu ilaah yidhi xaasibiina xaalanahay kuwa wax xisaabinaya xisaabna addoommada annagaa ugu filanoo wax yar iyo wax weyn wixii qof sameeyey waa la arkaya waa la keenaya caaisha binti abibakar sidiiq radia allahu tacaala canha waxay tidhi nin saxaabada ka mid ah rasuulka hor fadhiistay markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah inna lii mamlukayni rasuulka allah waxaan leeyahay laba addoon yakdibuunanii beenay ii sheegaan been ayay ii sheegaan wa yakhuunuunanii waa ikhiyaanaan wa yacsuunanii waa i caasiyaan wa adribuhum anna waa garaacaa wa ashtumuhum waan caayaa fa kayfa ana minhum see berri qiyaame ka ahaana berri qiyaame saan ku kala baxayna bal iiga war beenay ii sheegayaan waa laba addoon anugu iska leey beenay ii sheegayaan waa i khiyaanayaan shaqada markaan u diro waxa weeyaan waa i caasinayaan mararka gabal oo waxaan u dirayaysan sidii ahayd saxdaa iigu fulinayn waa xoolahaygii oo laba addoonood anugu leeyahay wey markaana garaacid iyo cayan isugu dara saan noqonaya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yuxsabu maa khaanuuka wa casawka wa kadabuuka wa ciqaabuka iyaahu laba shayaa la xisaabina laysku miisaama intay been kuu sheegeen intay ku khiyaaneen intay ku caasiyeen iyo ciqaabkaad ciqaabday saddexaana mid soo baxayda yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam haddii ciqaabkaagu uu ka yar yahay dunuubtooda dheeraadaad ku yeela waa lagaaga qaada berri qiyaama qofkii beenta kuu sheegay qofkii ku khiyaanay qofkaad daaca ku laheeda ku caasiyey waa lagaaga qaada xaqaaga maahan xoolo kale iyo berri wax la kala qaada qofkaad beenta u sheegtay berri qiyaama waa jaf adaa lagaa qaada xasana kow lagaaga siina waa lagaaga qaada maxaa soo haray waxaa soo haray
ciqaabkaaga iyo dunuubta ay galeen hadday isla ekeen khalaas waa la isla tuuraa laa laka walaa calayka adna wax kuma lihid ayaguna wax kuguma laha wain kaana ciqaabuka iyaahum fawqa dunuubihim intay kuu geysteen ka badan haddaad ciqaabtay uqtusa lahum minka alfadlu aladii yabqaa qibalak waa lagaaga qisaasa adaa lagaa beega addoonkaad aduu iska laheed waa lagaaga beega ciqaabkii aad ciqaabtay oo ka dheeraadaha dembigiisa adaa lagaa jara markaas ayaga la siinaya marka cadligaasaa dhacaya maalinka qiyaamada cadligaas ayaa dhacaya markuu hadalkaas nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam oo addoonkuu dhalay caydu caayaayey in laga beegayo hadduu xadgudub ku sameeyey uu nabigu sheegay uu iska boy saxaabigii waa qayliyey markaasaa rasuulku yidhi maa lahu amaa yaqra'u kitaab alla muxuu la booyaya miyuusan kitaabka alle saas inuu sheegaya cadday miyuusan akri kitaabka alleh inuu sidaa sheegaya miyuusan akri wanadacu mawaasiina alqisti liyowmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay'a wain kaana midqaala xabatin min khardalin atayna biha wakafaa bina xaasin aayaddu nabigu akri aayaddaanaa sidaa sheegaysa aayaddan ayaa sidaa sheegaysa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad aataynaa waan siinay muusaa nabiyullaahi muuse wa haaruuna iyo haaruun alfurqaana xaq iyo baadil kala saarihii wa diyaa'an iftiin ayaan siinay wa dikran waanaan siinay lilmuttaqiina dadka alla ka baqa la waaniyo aladiina muttaqiintii ayaa la waaninaa yakshawna ka baqa rabbahum rabbigood bilqaybi maqnaasha xaalo ay uga sugan yihiin wahum ayaguna min asaacati saacadda qiyaama xaggeeda mushfiquuna ka baqa wahum ayaguna min asaacati saacadda qiyaamaha xaggeeda mushfiquuna kuwii ka baqa ah wa haadaa qur-aankaanu dikrun waa waano waanadaasoo mubaarakun la barakeeyey waanadaasoo ansalnaahu aan soo dejinnay afa antum idinka munkiruuna kuwii inkiraya miyaa tihiin lahu lihaada kitaabi kitaabkan in badan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu isla xidhiiriyaa qisada nabi muuse iyo nabi maxamed sala allahu calayh wasalam in badan ilaahay wuxuu isla xidhiiriyaa kitaabka towraada iyo qur-aanka wax badan ayaa qur-aanku labadaas isku xidhaan ilah wuxuu ihi subxaana walaqad aataynaa waa siinay aayaadkii hore dhan waxaa looga soo hadlayay nabiga sala allahu calayh wasalam iyo kufaartii ka soo horjeeday iyo istihzaagay ku hayeen ayaa looga soo hadlayay haddana nabi muuse laga warrami haddana qur-aanka lagu laabana nabi muuse iyo kitaabkiisa marka la sheego qur-aanka lagu laabana haddana walaqad aataynaa wallaahi qad xaqiiqa aataynaa waa siinu ilaah yidhi muusaa nabiyullaahi muuse iyo wa haaruuna nabiyullaahi haaruun alfurqaana kitaabkii xaqa iyo baadilka kala saarayaan siina waxa weeyaan kitaab kastoo ilaahay soo dejiyey waa furqaan ayu kitaab alla soo dejiyey wuxuu kala saarayey xaqa iyo baadilka wuxuu kala saarayey xalaasha iyo xaaraamta wuxuu kala saarayey hanuunka iyo dalaalka wuxuu kala saarayey waxa weyn dariiqa sawaabka iyo dariiqa baadida wuxuuna ahaa nuur waxa weyn jahliga dadka waxa weyn u iftiimiya oo wax ku kala arkaan marka hadda furqaanta la sheegaya waa tawraad ayu kitaab alla soo dejiyana saasuu ahaa oo ilaahay ummad u soo dejiyey waa furqaan xaq iyo baadilku kala saara xalaasha iyo xaaraamtu kala saara sidaas weeye marka furqaanta waa tawraad wa diyaa'an iftiin ayaan siinay oo ay ku iftiinsadaan fii dulumaati ljahli meelaha masaa'ilka ay ka jahli yihiin kitaab u kala iftiimiya oo iftiin ah waa tawraad iftiinku asagaa sifada iska leh wa dikran waanaan siinay oo ka hadlaya caqli celin iyo tarkiib iyo tarhiib cabsigelin rajogelin waxa weyn waa waana ayadana tawraadda lafteeda sifadaa leh dhammaan sifaaddaas isagaa leh tawraadda waxa weyn dhinac waxa weeyaan waa xaq iyo badil kala saare dhinac waxa weyn waa iftiin jahliga looga baxo haddana waxa weyn tarkiib iyo tarhiib oo xambaarsan yahay oo wuxuu sheegayaa cadaabka iyo waxa lagu galo jannada iyo waxa lagu galo intan waa sheegaya waa dikran waano ayaan siinay lilmuttaqiina dadka alla ka baqa la waaniy marka yaa kitaabka ku intifaaca waxa weeyaan kitaabka xaqi baadilka kala saaraya kitaabka dadka waaninaya waxaa intifaacsada muttaqiinta dad alla ka baqaya aladiina muttaqiinta yakshawna ka baqaya rabbahum rabbigood bilgaybi maqnaasha xaalay rabbi uga sugan yihiin rabbigay ka maqayin oo macnaheeda waa maxay adduunyada markay joogaanay ka baqaan sida uu yidhi imaamu albaqawi yakhaafuunahu walam yarawhu bilqayb waxaa loola jeeda allay ka maqan yihin oo macnaha waxaa loola jeedaa macnaha ayagoon arkaynin adiga rabbiga miyaad arag
haddana waa caabudeedaa soo maahan bilqayb waa saas muttaqiintu waxa weeye dadka ayagiion rabbi arag ila adduunka dadku kuma arkaan rabbi dadka allah caabuday oo ka cabsanayo isla berri marka qiyaamo ilaahay lagu horgeeyo haddaad waajibaadkiisa dayacdo ama kuu cadaabaa haddaad wuxuu kaa reebay ku dhacdo ama kuu cadaabaa dadka nuucaasa ayuu waana kitaabku yidhi macnaha dadkaasaa ku intifaacaya dadka aan muttaqiinta ahayn qur-aanka xaqa caddaynaya waxa weeyaan wax aan ciqaab hayn ka siyadsamayaan sababtoo ah waxaa la rabay kitaabku markuu iftiimiyo ee uu yidhaha dariiqaasuna waa dalaal dariiqaasuna waa xaq kan inaad qaaddo qofkii aan kan qaadinee dariiqii dalaalkaha iska qaada xujuu ku noqona berri qiyaamo maxaa yeelay ilaahay buu caasiyey waa maxay calaa cilmi isagoo og inuu alla caasinayo alla caasiyey idan wax aan halaagahayn kama siyaasan kitaabka marka kitaab waxaa ka faa'iido qur-aan dhegaysigiis ka faa'iido waa maxay qof taqwa qulubtiisa ka buuxdo oo doonaya wixii qur-aanku caddeeyo inay baadil yihiin inuu ka cararo wixii qur-aanku caddeeyo inay xaq yihiin inuu ku dhego qofkaas weeye qofka faa'iidaya haddii kale waa inaad garataa khasaara inay kuu sugnaato oo aad kitaabkii inta xaqi kuu caddeeyo taadiina ay meel kuu taalad hawadaada iyo dariiqaada ku socoto ilaah wuxuu yidhi subxaana wa hum muttaqiintu mushfiquuna kuwii welwelayo cabsanaya weeye min asaacati saacadda qiyaama ka cabsanaya oo isla ilaahay markii saacadda qiyaama lagu horgeeyo waajibaadkii uu kuu diray ama dayacday oo ilaahay kuu ciqaaba waxuu kaa reebay oo nawaahida ah amaad ku dhacdood ku tumatay oo ilaahay kuu ciqaaba qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wahaadaa qur-aanka towraad markii laga soo qur-aanka lagu dara wahaadaa kitaabkan qur-aanka ah dikrun waano wey waa waano waa caqli celin dadka waa u caqli celinaa dikrigaasoo mubaarakun la barakay oo khayraad fara badan uu ku jiro dikrigaasoo anzalnaahu aan soo dejinnay ilaah wuxuu idhi subxaana afa antum idinka munkiruuna kuwii inkiraya miyaa tihiin lahu lihada kitaabkan qur-aanka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad aataynaa wallaahi qad xaqiiqe aataynaa waa siinay ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim rushdow hanuunkiisii ayaan siinay min qabli muusa wa haaruuna muuse iyo haaruun ka hor ayaan siinay wa kunnaa waxaan ahaanay caalimiina kuwa yaqaana bihi ibraahiim id waqti ayaan siinay qaala ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihiis iyo wa qowmihi tolkiis maa haadihi tanu maxay tahay tanday attamaahiilu ee taallayaalkaa allatii taallayaalka antum idinka caakifuuna kuwii ku negi aad tihiin lahaa calaa cibaadatiha cibaadadeeda qaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen wajadnaa aabba'anaa aabbayaalkeen waxaan ogaanay caabidiina kuwii caabuda inay yihiin lahaa taallayaalkaas qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi laqad wallaahi allan ku dhaartay qad xaqiiqee kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabba'ukum aabbayaalkiin fii dalaalin baadi kuwa ku sugan dalaalkaasoo mubiinin cad qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ibraahim ma noo timid bilxaqi dhab miyaad noola timid makaa daacadaa am anta min allaacibiin mase adiga waxaad ka mid taha dadka nugu cayaara qaala wuxuu yidhi bal iskabadaa cayaar xagga dhig cayaar ma joogtee rabbukum rabbigiinna inaad caabudaan mudan ee xaqa u leh rabbusamaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka midkii abuuray weeye alladii rabbigii weeye fatarahunna ciraryaalka iyo dhulalyaalka abuuris bilaabay wa ana aniga calaa daalika rabbigaas keligiis in la caabudo minashaahidiina kuwa ka marakacayaan ka mida allah subxaanahu wa tacala haddana wuxuu nooga warramin khaliilkiisii ibraahim calayhi salaam ilah wuxuu yidhi subxaana walaqad aataynaa wallaahi qad xaqiiqe aataynaa waa siinay ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim rushdow hanuunkiisiyaan siinay hanuunku wuxuu yahay in shirkiga la diido shirkiga in la diido oo alla qayrkiis la caabudo la inkiro taas weeye hanuunku waan arki doonaa min qablu maxaa loola jeedaa laba macno min qabli muusa wa haaruuna hadda muuse iyo haaruuna laga soo hadlay soo ma ahan ka horaan siinay ila wuu ka horreeyey nabi ibraahimna ka horey waxaa dhan marka intaan muuse iyo haaruun la soo dirin ka hor ayaan hanuunkiisa siinay taas waa macnaha labaad min qabli lbuluuq intuusan qaangaarinaan siinay rususha waxaa la yaqaanaa rasuul waxaa laga dhigaa markuu 40 iyo meelahaas gaaro laakiin asaga intuu yaraayaan hanuunba siinayba isagoo yar oo weli aan gaarin oo fii siqarihi ku jira aan hanuunka siinay labadaas macnaa loo fasir min qabli muusa wa haaruuna ayaan siinay wa kunnaa waxaan ahaanuu ilaah yidhi caalimiina kuwa og bihi ibraahiim
annahu kaana ahlan lidaalika waxaan ogaynuu ilaah leeyahay markaan dooraynay inuu ehel u yahay doorashada fiiritana allah subxaanahu wa tacaala qofkan markuu dooranayo qofkan iyo wuxuu ka samaysan yahu yaqaan qalbigiisuu yaqaan maan adiga inuu ku weydiinayo adiga saa tahay qof daacad iyo ahmiyaadka kuma laha alle waxaa tahay oo dhan uu ku yaqaan haddii uu ilaahay quluubtaada ka arko inaad astaahisho in lagu doorto wuu ku dooran waqtigii nabiyaalka la soo diraayo qofku rabo nabigu u dooranay nabinimo hadda waa dhammaatay haddii ilaahay qalbi wanaag kaa arko muttaqiintu kugu darsan a'imatu diinu kugu dari imaam diineedu kaa dhigi soo ma jeedid doorashada alla uu dooranayo calaa cilmin weeye cilmiyuu ku dooranaa ilaah wuxuu leeyahy ibraahim caaliman ku ah waan ekey waxaan caalim ku ahaa annahu kaana ahlan lidalik inuu ehel u yahay in la doorto oo rasuul laga dhigo oo khaliil laga dhigo saasaan weynu dhahlay idan qalbigaaga ilaahay wanaag ka arko haddaad rabto imaam diineed ilahay inuu kaa dhigo marka ilaahay qalbigaaga wanaagii ka arko ilaahay doorashadiisa markaas heleeda ilaa ilaahay quluubtaada iyo kulli jirkaagu ogyahay xaaladaada iyo xaqiiqadaada ilaah wuxuu yidhi subxaana id qaala liibraahiima idda laba meeloodaa lagu tacallujiyaa aatayna ku tacalluji id waqti ayaan siinay ibraahim hanuunka qaala uu ku yidhi liabiih waa kan hanuunkii fiil hanuunkii waaba kan waxaa kaloo la yidhaahdaa in ficil loo soo qadaro wadkur sheeg nabiga suubano id waqti qaala uu yidhi laakiin tan horaa ka wanaagsan id waqti ayaan siinay hanuunka qaala uu ku yidhi liabiihi aabiis isagaa dhalay aazar iyo wa qowmihi tolkiis maa maxay tahay haadihi tanday atamaaiilu ee taallayaalka tamaaiil waa jamcu timhaalin timhaalna waxaa la ihahdaa ashayu lmasnuucu shabiihan bikhalqin min khalqi illaah waa shayga loo sameeyo makhluuqa mid ka mid a sidiisii oo kale masawirka la sameeyo waa la qoray geedkan ama dhagaxaana la qoray waxaa loo ekaysiiyey qof hebel waqtigii horeeto waxa weeye muqdisho dowladdii hore jirtay waxaa ooli jiray taallo weyn oo la ihahdaa sayidkiina cabdilla xasan haweynta mid kaleetoo dheer oo waxaa la leeyahay dhagax tuur waxaa la leeyahay halgamayaalkii waa mid kaleeto asna gabar kaleeto mid kaleeto nin kale waxaasaa yaal taallo markaa qofkii taas yaqiina taallo waa iska fahmi karaa taallo waa saas haddii faras laga dhigo la sawiro waa taallo haddii dubil la sawiro waa taallo taallo waxaa la idhahdaa waxa weeyaan suurad oo makhluuqa mid ka mida marka la sameeyo ayaa waxa la idhaha taallo marka masawiro meel la dhigay ay iska agfafadhiyeen oo caabudayeen markaasuu ku yidhi waa maxay taallayaalkan ad agfafadhidaan maxay yihiin maxay ku filan yihiin maxay tahay haadihi midaan tanday atamaaiilu ee taallayaalka ah allatii taallayaalka antum idinka caakifuuna kuwii ku negi aad tihiin lahaa ay calaa cibaadati cibaadadeeda cukuufka waxa la ihahdaa waa luzuumka nagaashada meel lagu nagaado haddaad meel fadhiisato weynayn aad shaygan weynayn u fadhido daaca adeecaydaad u fadhidaa waaba kaas cibaada haddaad maqasho welidaas saas daraaddeeda cibaadooyinka waa weyn ee alle lagu caabudo waxaa ka mid ictikaaf ictikaafna macnaheeda waxa weyn qofka muuminka inuu masaajidka dhex fadhiiso ilaahay dartiisa u fadhiisanay waxaad go'aansataa 12 saac bal maalin inaad ilaahay u fadhido dartiisa hal xaraf oo kale u akhrimida dar cibaadooyinkaaga kalood iska wadatay maahane ictikaafkan cibaado u gooniyo u akhrimayo fadhigaas aad naftaada ilaahay u xabistay hadi hiya alcibaada cibaadooyinka waa weyn ka mid welidaas saas daraaddeeda 10ka dambe ramadaan ee laylatul qadrku ku jireen ugu fadli badan habeenayaalka nabigu cibaadadu alle ku caabudi jiray ka mid ictikaaf inuu naftiisa ilaahay u xabiso masaajidka geliyo marka fadhintaan aad ilaahay u fadhidaa cibaadooyinka waaweyn ka mid haddaad marka qabri ag fadhiisato cibaadooyinka ugu waaweyn mid kale caabud hal xaraf ma dar waa ag fadhida qabrigaanaad ag fadhida soo ma jeedid cibaadooyinka ugu waaweynaa wey oo mu'miniintuna alle ku caabudi jireen gaaladuna sarmiyaalkooda ku caabudi jireen idan aadna qabrigaanaad ku caabuday soo ma waa inaad garataa maxay tahay taallooyinkan aad ag fadhidaan hanuunka ilaahay siiyey marka muxuu noqday fiiri hanuunka ilaahay nabiyullaahi ibraahim siiyey fiiri xaafidku markuu aayadaas aqriyay wuxuu yidhi haadaa huwa rushdu alladii uutiyahu min siqarihi waa kana hanuunkii la siiyey intuu yaraa ibraahim oo waa maxay alinkaaru calaa qowmihi fii cibaadati alasnaami min duuni illaah inuu tolkiis ku inkiray sanamyaalka alla ka sokay la caabuda idan haddii ilaahay hanuun ku siiyey waa inaad tolkaa ku inkirtaa qubuura ay caabudayaan haddii kale ilahay hanuun kuma siin hanuun hadduu alla ku siiyey tolkaa ku inkir waxa weeyaan qubuuraha ay tuugayaan caabudayaan sidaasaa nabiyullaahi ibraahim hanuunkii la siiyey saas u ahaa
tolkii sanamyaalkay caabudayeen uu ku inkiray hanuunku kaasuu ahaa markuu su-aashaas weydiiyey waa kana waxay ku jawaabeen taqliidi wax la yidhaahdo qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii wajadna aabba'ana aabbayaalkeen ayaan ogaanay caabidiina kuwii caabuda inay yihiin lahaa caabidiina kuwa caabuda inay yihiin lahaa litamaahiili taallayaalkan annaga waxay yidhaahdeen xujo kale ma hayno laakiin waxaa xujo noo ah ab iyo awowa laga soo gaaro awowayaalkeen iyo abkeen aabbayaalkeen ayaan ka soo gaarnay markaan arkay halkaanu fariisan jiray sidii aan anna u fadhiya ma xujo kale loo haya qubuuraha la ag fadhiyo la dawaafayo inta la tago qubuuraha ee qabriga waxa weyn shuq u weesdheere lagu soo wareegayo 7 goor wax kale xujo ayaa u keeni kara ma ilaahay kitaabkiisa ku taala u weesdheere 7 goor ku dawaaf kuma taalo qofka keeni kara ma jiro kaliya waa maxay inna wajadna aabana aabayaalkeen ka soo gaarnay aabayaalkeen aan ka soo gaarnay wadaada culumano ahajireen ka soo gaarnay waa intaas weey laakiin ilaahay kitaabkiisa lagama keeni karo sheekh ways qabrigiisa 7 goor hala dawaaf qofka keeni kara ma jiro kitaab alle meel uga taalo idan inta goor tahay istabaqado xujada nuucana waa xujatu mushrikiina la yiraahdo qofka in marka la yiraahdo war waxan maxaa u daliil ah maxaad waxaan u sameeynayda inuu aabayeen ka soo gaar wuxuu haday cibaado yihiin aabayeen ka soo gaar kuma filan haday caado yihiin iyo dhaqan sharcigu uu san diidayn aabaha ka soo gaartay maxamed hal ma adan halay wuxuu iska caadi waa iska dhaqan diin ilaahay kama soo horjeedo aabaha ka soo gaartay ku soco wax dhibaato ma leh laakiin shay diin aad ka dhiganaydo xujo ilaahay agtiisa ku noqo ma aaban ka soo gaar waxna ku tarima aaba wuxuu ku qaldanaa ku raac adigana cadaabad ku muday asna dambiya u siyaada qof kasta uga dayda iyo caruur kasta uga dayda dambiya uga siyaada adag marka ma naarada asagii u shaqeynay ha u shaqeynaa adna naara shaqeysan sida uu jawaabay marka fiir nabiyullaahi ibraahim bal jawaabtan iyo jawaabteenu inay iswaafaqsan tahay aan fiirin qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi laqad kuntum wallaahi qad xaqiiqe kuntum waxaad ahaateen antum idinka hadda caabuda iyo wa aabaa'ukum aabbayaalkiina horod ka soo gaarteen fii dalaalin baadi kuwa ku sugan dalaalkaasu mubiinin cad dalaal cad aad ku sugantihin soo war cad maa qof mushrik ah ilaahay qaybkiis caabuda qubuuraha tuuga qubuuri ah qabri caabude ah inaad tidhaahdo waa roon yahay dhib weynu ma jiro meeshaasaa malab buuxa wax yar in lagu kaadiciyo rabaa lagu qaso ma khiyaano mase waa daacad wallahi waa khiyaano diin sax maahan dariiqada nabiyaalkana ma yaa qof mushrik oo qalbiga shirki buuxdo maal ka buuxdo inaad tiraahdo dadkan mushrikiin hayga dhihin dib weyn ma qabaan hooga malaba halkan fadhiyo sonkor asalka fadhida waa sheeh laba qaado sonkor lagu daran wali lagu qasin hadii wax yar la kaadiciyo isaga iska hagaaga war qof shirki ku jiro ma sonkora ku jirta mise maala ku jirta waxay ka dhigan tahay fiiri dhaqtar loo geeyey qof tiibisha dilatay inta feeruhu maalu buuxdo yaa laba dhaqtar loo geeyey billahi calaykum mid waa fiirinkaas waa arkay markaas wax weyn ma aan feer barayara xoogaa ku xumaaday hargab yar oo qaba xoogaa bal asbariina hala sii kii kalena waa u geeyey war qofku waa dhintay cirbado culus u baayay xataa kaliin wax kama qaban karo labadooda yaa daacad ku ah oo naasix ku ah yaa naasix waxa ku ah midka cudurkaaga rabta ka warramayo Soomaa haddaba hadii la yiraahdo war shirkiga ka carara iyo hadii la yiraahdo ma dib weyn ma dadka iga kala didin dadka iyo kala cararin wax weyn ma jiro dib weyn ma jiro dadkan dad qayb qabayaal waa barakaysan yihiin xoogaa yar sonkora hoos fadhidee xoogaa lagu kaagiciyay rabaan labadaas qofka naasixa ku ah dariiqada nabiyaalka ku socdo inaad garataa labadaas qofka dariiqada nabiyaalka ku socdo waa inaad garataa laqad kuntum antum wa abaakum fi dalaalin mubiin taasuu leeyahay nabiyullaahi ibraahim soo ma jeedin hadalka saxda waa hadalkaas nabiyaalka waa yaabeen marka waaba malaysan waayeen hadalkan say u hadleen fiiri qaaluu waxay yidhaahdeen ajitana ma noola timid bilxaqi dhab makaa daacada amase anta adiga min allaaciina dadka ciyaarka mid manugu kaftame mise waa kaa daacad annaga iyo aabayaalka dhan malunsame faqaada waaye fiiri la yaabe makaa daacada arrinta mise waa nagu cayaareen cayaar miyay taalla qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim bal cayaar ma jirta iska daa cayaar xagga dhig rabbukum khaaliqa cibaadada mudan ee inaad caabudaan mudan rabbu samaawaati waalardi dhulka iyo ciraryaalka rabbigoodii weeye alladii rabbigiiya cibaada idinku mudan fadarahunna ciraryaalka iyo dhulka abuuristooda bilaabay wa ana anigana min ashaahidiina dadka ka marqaati kacayaan ka mid ahay calaa daalikum midkii naas aan idiin sheegay oo ah cibaadatullaahi waxda
حتى عيارتك كالليدا عيارنا تلميش ساس ويري هذا العد ويري وانا دارتيبا قال تعالى إله وحويري نبي الله إبراهيم وحويري والله إلهي بان كدارتي لكيدن وان هقرسنا يا أصنامكم سنميالكين بعد أن تولوا مركز جيستان كقبال مدبرين حالتين كو دبدا جيدنا فجعل النبي إبراهيم وحكادقي هم سنميالكي جدادا بربر إلا كبيرا مدوين ماهنه كبير كلهم قال هذا وسقناضي لعلهم يرجعون لكي يرجعون سي اغو لابتان قالادو اليه الى الكبير مدكوين قالوا قالادو waxay yiraahdeen man kuma fa'ala sameeyay hada fi'ilka bi alihatina ilayalkina ya ku sameeyay innahu ki sameeyay la min adh-dhalimin kuwa gardaranu kamid yahay qaalu shacabki gabala waxay yiraahdeen sami'na waxaan maqalnay fatan wiil dhalin yara wiilkaasoo yadkuruhum ilayalka ceebayna wiilkoo yuqaalu lahu la yiraahdo ibraahiim qaaluu waxay yiraahdeen faatu la imaada bihi wiilka la imaada ala a'yuni naasi dadka indhooda xaal ku sugan yahay la'allahum yashhaduuna likay yashhaduuna si dadku ugu marqaati furaan qaaluu waxay yiraahdeen anta adiga miya fa'alta samayday hada fi'ilkan bi alihatina ilahyalkeena maada ku sameeyay ya ibraahiim qaala ibraahiim wuxuu yiri bal iskaba daaye فعله وحا فعلك سميي كبيرهم سنميالك كانوا وين هذا او كان فاسألوهم ويدية إن كانوا إلهيالك أديهين ينطقونك وهدلا نبي الله إبراهيم وعدت وحيري حافظ كثير قال سدي وعمدي سلف كالتفسير كامل وحيري وقت عيد قال هذا مركي سود دواتي أيا وحيري نبي الله إبراهيم أبيس وحيري ما دو مكان نراع حتى بحضوض نراعه وعيدنا نور راعه دينتين وكو عجب دلي دينتين الديدنتها ودين عجيب وآدو قيمة بضان قال انت ما انت نراع عيدنا لا تكتو وحوين آلكو عجب دلي دينتين واو راع عبارة منكو وسي صعدوا الطريقة بحي يسميها لسكتور مركز فين إني سقيم أنا وحنو صنية أنا وحنو صنية ما ينراعك قولي سوما تور محاده ويرى إني سقيم أنا وحنو صنية ما ينراعك لقال ما قيب قالوا عيد قالات أضم حقيقة بكري عيد هداد أدكو ليا هاي oo inta istaagto dhigi karta waa baadil waxa meesha la isku yimi ilaahay ha looga cabsado sanad dambeeyaan loo laaban waa la taga waajibeyna kugu tahay tagta munkarka si hada suuri karto laakiin ad kuma lihid waxaad ka tahay adiga waxa weyn atbaac meesha iska fiirsana baadilka waxa weyn xaraan weyn lama tago mar ku banaan inaad tagta soo ma jeedid aniga waa jiranahay uu yiri markay tageen laakiin qaybtii ugu dambeeyay ay maqlaydo uu isceli waayay cara kaliya markaas uu dhaartay markaas uu ballan ilaahay waxa inaan sirqo u dhigo sanamyaalka xunka marka tagta ilaa maqlaayeen kuwa maqlama markaas uu dhaaranaya kuwa maqlaaya mar alla markay tageen oo ay ka tageen uu faaskiisa soo qaatay ayaguna ciid markay aadayeen ay cuntada inta qaadeen ay hor safeen sanamyaalka oo ilaahay ilaahayalka noo barkeena marka soo laabanaan cunayna iyagoo barakaysan cuntada ta uu yimid uu yiri ma lakum la taakuluun ma cuntada wadinka soo fiirinayeen saasay la iska soo taagay waxay cunayaan mal ala taakuluun ku yiri war miyana cunay wa hal lidin ka soo ma lakum la tandiqun waxayna ku dhacay la lilaadiin kalimat markii laga waayay faraaqa alayhim darban bil yamin wuxuu kula leexday faaski markaas cad u googooy illa hal sanamo weyn maahan faaskina garabka u soo kii weynaa kaas iska markay yimaadeen ay ruuxaya ku sameeyay ilaahiyalkeen qoladii maqashay aatiri war wiil yaraan maqanin ilaahiyalka ayaa jiray wiil yar oo ilaahiyalka ay hanuunka cid ilaahay siiya toosan soo ma jeedid ibraahim wiil yar loo sheegay wiil yar ina tahay ceeb ma mar hada xaq ku suganta dib mare ya wiil yar ay jiray waxa yiraahdeen keena si loogu marqaati furo ha lagu marqaati furo keena wala keena waxa la ibraahim waxa aan maada ku sameeyay markaas uu yiri ma kan weyn aka qiirooday waxa la caabudayo yarka markaas uu naka dhig weydiiya haday hadlaayaan weydiiya hadalka dhan meesha looga dalay waa halkaas weydiiyada weey muxuu rabaa inay gartaan waxa ay caabudi jireen xataa waxaan dhibkan yaa kugu sameeyay ka jawaabka inuu meesha dhan uu arinta uga dalay waa weydiiyadaas fiiri halkaas uu rabaa inuu garansiiyo
oo ka dhaadhiciyo waxa ay caabudayeen iska daa inay wax taraaneen xataa waa inaan dhibkooda ka jawaabi karin intii dhibka u geysatay marka wuxuu rabaa inay inta isla hadlaan oo fakaraan gartaan waxaan wax cibaado istaahilaysan ahayn intaasuu ka rabaa inuu garansiiyo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi watallaa ilaahay baan ku dhaartay inuu yidhi nabi ibraahim laakiidanna waan hagarsanaa sirqol aan u samaynaa asnaamakum sanamyaalkiinna bacda an tuwalluu markaad jeesataan ka gabaal ayaan sirqoolka u samaynaa mudbiriina xaala'atiin kuwii dabada jeedinaa waa tageen markay tageen waa kana fa jacala nabi ibraahim wuxuu ka dhigay hum sanamyaalkii judaadan burburu ka dhigay waa googooye burbur ilaa kabiiran mid weyn maahane kabiirkaasoo lahum gaalada u sugnaaday muxuu kaas u daayey waa kana lacallahum dadku waxay mudan yihiin yarjicuuna inay u laabtaan ilayhi kabiirkaas waa meesha dhammu rabo in wax laga fahmo dadku inay wax weydiiyaan oo la yidhahdo war yaa baadaasha ilaahyaalkan kale markuu jawaabi waayena dareen ku dhasho dadku oo la yidhahdo oo wax aan caabudayna xataa dhibkiisa ciddii ku samaydaba sheegi kara miya oo meeshaas ay wax ka fahmaan dadku oo ay saas ku gartaan inuusan cibaado mudnayn meesha dhammu rababa inuu wax laga garta waa halkaas marka dadku si ay ugu laabtaan qaaluu waxay yidhahdeen markay soo laabteen man kumaa facala sameeyey haadaa ficilkan biaalihatina ilaahyaalkeenna yaa ku sameeyey innahu midkii ku sameeyey la min adaalimiina kuwa gardaranu ka mida dulmi weynu geystaye yaa ilaahyaalkeenna weeraray qaaluu waxay yidhaahdeen gabalkii maqlaaya jawaabtaan leh bacdigii maqlaya markuu dhaaranaya nebi ibraahim qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waxaan maqalnay fatan wiil dhallinyaraa wiilkaasoo yadkuruhum caayaya ilaahyaalka yadkuru xalan soo marnay yadkuru ee yuciibu weye mid ceebaynaya oo wax ka sheegaya wiilkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo ibraahiimu qaaluu odayaasha waxay yidhaahdeen faatuu bihi la imaada keena faatuu la imaada bihi wiilka calaa acyuni naasi dadka indhahooda xaala ku sugan yahay dadka hor keena maxaa loo keenaa lacallahum dadku waxay mudan yihiin yashhaduuna inay ku markhaati kacaan waa macno amase lacallahum dadku yashhaduuna inay xaadiraan oo arkaan cuqubada ku dhacayda si aan mar dambe loogu laaban labadaas macno wey keena dadka horta soo hortaaga si loogu markhaati furo amase keena aan ciqaabne si dadku ay u arkaan ciqaabta ku dhacda dadka ilahyaalkeenna weeraraya si aan dib dambe loo weerarin ilahyaalkeenna banu aadanka haddii shirki galo caqli male xoolaha ma dhaamo bal waa ka liitaa haddii shirki galo fiiri qof weyn oo banu aadana oo adiga kula mid ah oo caawadan u dagaalama inuu ilaahiisi difaaco oo waxa weyn ilaahiisi laga jajabinaayo oo kaliya aan gara karin war wax la jajabinaayo adiga muxuu ku tara intaas ma gara karo maxaa yeele dareemihiyaa dhintay qofka shirkigu hadduu galo dareenku waa dhimana dareemayaalkoo dhan ayaa dhimana marka waxa isleeda malaha banu aadamba maana isleeda dareemayaalkoo dhan ayaa dhimanaya qaaluu waxay yidhahdeen waa la keenay marka qaaluu waxay yidhaahdeen a anta adiga miyaa facalta samayday haadaa ficilkan biaalihatina ilaahyaalkeenna ku samayday yaa ibraahim maadaa sidaan u gala ilaahyaalkeenna qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim bal iska badaaye facalahu waxaa sameeyey kabiiruhum ilaahyaalka midka ugu weyn haadaa oo kan midkaanaa sameeyey fas'aluuhum weydiiya ilaahyaalkan la burburiyey yaa dhibaatada iniin geystay iraahda in kaanuu hadday yihiin yandiquuna kuwa hadlaya nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xadiidka bukhaari iyo muslim saxiixaynka ay ku soo saareen min xadiidi abi hurayra ina ibraahiima calayhi salaam lam yakdib hayra alaai nabi ibraahim weligiis been ma sheegin saddex waxaan ahayn saddex fintayni fii daat illaah laba ilaahay dartiisay bay ahayd midda koobaad waxay ahayd qowluhu uu yidhi bal facalahu kabiirum haada kanaa sameeyey tan labaadna waxay ahayd innii saqiimu oo suuratu saafaad aan ku soo marnay waan xanuunsanahay marka hore u xeeladaysanayo wey tan saddexaadna waxay ahayd mar uu nabigu ibraahim uu soconayey nin jabbaar ah oo jabbaabirada dadka baadilka ugu qasba ka mid ah isagoo dhul uu xukumo socona masaraynay ahaydeen nabi ibraahimna ay la socoto xaaskiisii saara la socotay oo nabiyullaahi isxaaq hooyadiis ah ayadoo ay la socoto meeluu degay markuu degay waxaa u yimid ninkii jabbaarka ahaa ee boqorka ee dadka qasbi jiray mina u yimid markaasuu yidhi dhulka aad xukunto waxaa ku soo degay nin ay la socoto islaan dadkao dhan ugu qorxoon markaasuu u soo ciddira u yidhi halla ii keeno
markaasuu nabi ibraahim ayaa yimid marka waa u soo cidiray nabi ibraahim waa yimid wuxuu yidhi maa haadihi almar'atu minka maxay kuu tahay islaamtaan duu yidhaha waa xaaskaygii waa dilaana waaba dilaaba waa ka dilana duu yidhaha waa walaashayna isiyuu leeyay anaa la wareegay wuxuu yidhi hiya ukhtii waa walaashay uu yidhi waa walaashay qaala wuxuu yidhi fadhab fa arsil biha ilay ta tagtid ii soo dir hadday walaashaata fandalaqa waa tegay nebi ibraahim ilaa saaruu u tegey wuxuu yidhi ina haada aljabbaax ninkan oo dadka qasba sa'alanii canki waxbuu iga kaa weydiiyey fa akhbartuhu annaki ukhtii waxaan u sheegay inaad walaashayta falaa tukadibnii cindahu haygu beenin agtiisa oo markuu ku yidhaha ninka maxaa isku tihiin waa walaalkayga ee hadhihin waa zawjkaygii maxaa yeelay walaaltinimada marka meeshu u awishay tawriya la yidhahdaa tawriya macnaheeda waxa weeyna hadal qofku si u fahmayo si kalena aqbali karo sida kale adigu ula jeedo sida kalena waa aqbali kara mar walba ma banaana laakiin cadowga markuu ku qabtay banaanta mar walba ma banaana tawriyadu marar badan ay xaaraanta marka waa walaash shay u yiri markaasuu haygu beenin ninkaas ma u tagto walaasheed maxaa yeelay fa innaki ukhti fillah walaaltinimada aan sheegaya fa innaki ukhti fi kitaabillah ilahay kitaabkiisa walaal igu muslimaad baata anna muslim baa laba walaalahu diinta ilahay walaal ku ahaan taasna waa cadda waa sariix marka dhankaas marka laga fiiriyo waa cadda wuxuu yidhi wa annahu laysa fi lardi muslimun hayrii wa hayri maxaa yeelay dhulka maba joogo qof muslim ah oon aniga iyo adiga ahayn wax muslim ah aniga iyo adiga ka joogno macnaha zawj iyo zawjadiis oo isqaba oo labaduba muslim yihiin aniga adigaaba ka joogno marka ha igu beenin ninka khalaas nabi ibraahim waa u diray marka waa waday waa u geeyey waa istaagay salaaduu galay ilaahay weyne subxaana wa tacaala haddaad badan ka leedahay waaba ka leedahay haddaad garanaysee salaadaa la galaa waa la tukadaa ilaahay waa la tugaa waa loo calacalaa waa iska istaagay ilahay iska tuug markay u gashay oo uu arkay uu xaggeeda gacanta u soo taagtay markaas asaga dhammaaba waa la qabtay waa jarci jaqjaqjaqjaq nafteeda ka dhigtay markaasuu yidhi udci illaaha lii walaa aduruki ilaahay ii baryuun mar damba ku dhibi maayo kaas tii ilaahu ka fuji ilaa hadduu dhinto waxaa la adaad dili dhib kala uga imaana khalaas ilaahu ka fuji dhibka waa roonaado quruxdeedii markuu arko haddana soo gaggabo markaasaa sidii loo qabto isla jarci markaasuu yidhi ilaahay ii bari mar damba ku dhibi maayo 3 goor markay tahay uu yidhi ordiga bax qoladii u keentay u yeer wuxuu yidhi shaydaan aad noo keenteena insiba maahane qorna naga wada isaga shaydaan ee ilaahay ciidankiisaa u soo gurmaday soo ma jeedin ilaahay weynaa waxa weeyaan jundigiisa tiradii ka batay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu iga wada yidhi insaan maahane shaydaan aad ii keenteene bixiya ad haajara gabadhaan ahna sii ha ka dhigata shaqaale falfiiri ilaah uga soo qaada haajara خلاص نبي إبراهيم يسيدن هاجر ونبي الله إسماعيل ونبينا كسو جيدو كسو فرعمي رويدس وي هاجر نبي إبراهيم waxay u dhashay نبي الله إسماعيل ay u dhashay markaasna wuxuu yiri waa walaashay saddexaas goor been sheeg saas yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam فرجعوا واللابتين قالبي إلى أنفسهم نففيالكود يكون لابتين فقالوا وحي يراهدين إنكم أنتم إذنك الظالمون كوي قردراناتهم ثم النقصوا ولا فورريي على رؤوس مدحيالكود اللو فورريي قائلين حال إليهين لقد حقيقة علمت وادقات إبراهيم ما هؤلاء كوانو ينطقون كوي حطلا إني سناهين قال وقل النبي إبراهيم أفتعبدون معابدين من دون الله على كسك حالوا هذا ما شيء لا ينفعكم أن وحين انترين هداد عابدان ما شيء لا ينفعكم أن انترين شيئا وحبا ولا يضركم أن وحين كدبين هداد إلى ذي سيسكديدان أف بالينيري لكم إذن كأف إيا ولما تعبدون واحد عابدين من دون الله على كسك حالوا هذا أفلا تعقلون مع عقل يضمن لهين markii uu yiri weydiiya bal yaa dhibka in gaystay raahba ay isku laabteen aqligoodii ku laabteen markaasay waxay garteen inay qaldan yihiin oo yiraahdeen alla ilaahay annaga qaldan sababtoo ah waxa weeyaan waxaan caabudnay waxaan xataa kelimad ku hadli karin hor waa qaldan ujeedadu kala haba intaas ummadii oo dhan ayaa meel la iskugu keen
markaasuu dhammaan xujadii ku oogay wuxuu garansiiyey waxa ay caabudayaan hadday caabudaan inaysan wax tari karin hadday cibaadadiisa iska daayaanna aysan wax ka dhibi karin hal marahay waxay garteen inay qaldanaayeen oo aysan istaahilin waxaan wax la caabudo inaysan mudnayn in la caabudo waaba garteen khalaas nabiyullaahi ibraahim guushi ugu weyneedu gaari waa guulaystay maxaa yeelay tawxiidkii waa caddeeyey shirkigii waa caddeeyey iska day ayagiyaa garteen shirkigu inuu baatil fiiri heerka ilaahay gaarsiiyey fiiri farajacuu waa laabteen maxaa loola jeedaa sida uu u fasiray alimaamu albaqawi macnahaasa daahir ah farajacuu waxaa loola jeedaa fatafakkaruu biquluubihim qalbiyaalkooday ku fakereen fatafakkaruu biquluubihim qalbiyaalkooday ku fakereen warajacuu ilaa cuquulihim caqliyaalkoodii u laabteen saasaa loola jeeda qalbiyaalkooday ku fakereen caqliyaalkoodiiay u laabteen qalbiyaalkooda laabteen saasaa loola jeedaa farajacuu waa laabteen ilaa anfusihim nafyaalkoodii ku laabteen waa fakereen caqligoodii u laabteen faqaaluu waxay yidhaahdeen innakum idinka antum idinka addaalimuuna kuwii gardaranaatihiin bicibaadatikum man laa yatakalam macnuhu waa saasuu yidhi imaamu albaqawi bicibaadatikum man laa yatakalam daalimiinaad tihiin waa lunsannahay annagaa daalimiin ah maxaa yeelay maxaa daalimiin ku nahay cibaadada aan caabudnay wax aan hadlayn xad sow xujadii kuma oogni sow ma isan garan baatilkii fiiri marka faa'iidada uu gaaray nabiyullaahi ibraahim sidaas weeye waxa weyn imaamu albaqawi uu yidhi weeye uma nukisu waa la foorariyey maxaa loola jeedaa waa la foorariyey wuxuu yidhi imaamu albaqawi uma rudduu waa la celiyey ila alkufri gaalnimaa loo celiyey bacda an aqaruu calaa anfusihim bidulm markay naftoodii dulmi ku qireen ka gadaal ayaa gaalnimo loo celiyey uma nukisu waa la foorariyey waxaa loola jeedaa wuu yidhi uma rudduu ila alkufri bacda an aqaruu calaa anfusihim bidulm gaalnimaa loo celiyey markay naftooda ku qireen ka gada dulm oo ay garteen inay daalimiin yihiin kadibaa shaydaan foorariyey ilah wuxuu yidhi subxaana uma nukisu waa la foorariyey calaa ru'uusi madaxyaalkooda loo foorariyey qaa'iliina xaalay leeyihiin laqad calimta wallaahi qad xaqiiqay calimta waxaad ogaatay ibraahiimow maa haaulaa'i kuwaan inaysan ahayn yantiquuna kuwii hadla ibraahim weydiiyaad maleeda aadna ogta inaysan hadlayn waxaan hadlaynaad annaga nagu xawileen saas yidhahde murankii ku soo laabteen awal waa ogaadeen mogta inay qaldan yihiin murankii ku soo laabteen ka war asna meeshuu ka rabeeyey ugu soo dhaceen dabinkii ku dhaceenba ilaa iyagii aynu ogtahay waa ogta inaysan hadlaynin fiiri marka dabinkii ku soo dhaceen qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi afatacbuduuna waayahay ma waxaad caabudaydaan min duunilahi alla ka sokay xaalu ahaaday maa shay laa yanfacukum aan idin tarayn shay-an hal shay aan idin tarayn in cabadtum haddaad caabudaan walaa yadurukum aanna idinka dhibayn shay-an shay in lam tacbuduu haddaadna caabudin waayahaye haddaad qirantiin inaysan hadlaynin seed ku caabudeen wax aan nacfina lahayn haddii la caabudo haddii la iska daayana aan dhibaata ka imaanayn seed ku keentay xujadii waa ku ogan ufin lakum waa kana hadalka nebi ibraahim miyaan ku dayanayna sheeka baraleyda kale aan iska raacayna dhib male wax yar xoogaa lagu qas u raba sheeka baraley wax ma tarayso nabiyullaahina hadalkiisaa sawaabkii yaa maxaa yeele rabbulcaalamiin annaga nabiyullaahi ibraahim uu nagu addoonsaday inaan raacno soo ma ogin qad kaana lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macahu id qaaluu liqowmihim inaa buraa'aau minkum wamima tacbuduuna min duuni illahi kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abada xataa tu'minuu billahi waxda sidaas weeye nabiyullaahi ibraahim ayaa dayasha noogu sugantah mu'miniin haddaana markay ku caddaatayna wuxuu ku soo qatimay ufin lakum uf ayaa layni yidhi uf lakum idinka ayaa uf ah waa masdera laga dhigaa ismu ficilna waa bannaanta ufin waa ismu ficil asalkeedu oo macnaheedu yahay waan u caraysanahay arrintiina bimacnaa atadajar weeye masderna ahlucilmiga gabola ka dhigeen ufin uf lakum idinkaa uf ah iyo walimaa tacbuduuna waxaad caabudaydaan min duunilahi alla ka sokay xaalay ahaadeen afalaa tacqiluuna maadan garaad lahayn saad ku caabudeen waxaanu nacfina lahayn dhibna aan keeni karin sidaasay ku yidhaha waa kana jawaabtooda marka maxaa lagu yaqaanaa jabaabirada dadka mujrimiintaa markay xujo waayaan inay mulkigooda iyo xooggooga adeegsadaan oo yidhahdaan gacanta wax looga qabto af wax loogama qabi karo waa ka af badan yahay markay xujo iyo gar waayaan inay xoogga u leexdaana lagu yaqaan jabaabirada waa kana qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii xariquuhu guba ibraahim wansuruu u gargaara
aalihatakum ilaahiyaalkiina u gargaara in kuntum hadaatiin faacilina kuwa samaynaa qulnaa waxaan nidhi yuu ilaah yidhi yaa naaru dabeey kuunii noqo bardan qabow wasalaama nabadgelyo noqo nabadgelyadaasoo calaa ibraahiima nebi ibraahim dushiisa ahaatay waaraaduu gaala waxay la dooneen bihi ibraahiim kaydan hagar weynay la dooneen fa jacalnaahum gaaladii waxaan ka dhignay alakhsarina kuwa khasaarada badan markay xujadoodii baaba'day ayay waxa weyn xooggii u leexdeen ilaah wuxuu yidhi subxaana gaaladii isagoo nooga warramaya ilaah wuxuu yidhi subxaana qaaluu waxay yidhaahdeen xariquuhu ibraahiim guba wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waxay mufasiriintu sheegeen xaabay aruuriyeen macnaha qoryo wax lagu shido waxay gaartay arrintaasu in islaan ka midu markay xanuunsato ay shardi gasho oo ay tiraa haddaan haysto waxaan soo gurayaa qoryahan ibraahiim lagu gubayo wax ka mid shardi inay ku gasho mid qof walba uu ka qayb galo la guro god weyn ayaa lagu guray lama shidin adduunka korkiisa dabkaas dab la awiyo saas yidhahd mufasiriintu weligiisa lama shidin dab intaas leeg maxaad u malaynayaa dab intaasoo sana la guraya qoryihiisa waa meeqa waddankaas uu leeyahay qoryahaas la dhig godna weliba lagu guray markii la huriyey qof awooda maba jiro inuu inta agtaga ku tuuro maba jiraba qof u dhowaa karaaba marka ibraahim inta xarga lagu xiray oo laan fikaala la saara lagu tuuray manjaniiqa lagula tuuray waa laan fikaal laan weyn oo xoog leh inta korka laga saaro oo la soo jiido aa lala sii dayna markaas inta tuurtay sida hobiyii korka waa dhifana dabkii dhexdiisa ku rid ka war hadduu yidhaa war waa iska daaya arrintan iyo laingubin waa la sii dayna laakiin diyaar uma ah intuu waxa weyn tawxiidka ka tanaasuli lahaa wuxuu raalli ku yahay in la gubo dabka lagu rido taasuu raalli ku yahay fiiri wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas radia allahu tacaala canhu sida saxiix bukhaariga ku sugan markii nebiyullaahi ibraahiim dabka lagu tuuray wuxuu yidhi xasbiya allah wa nicma alwakiil intaasuu xasbiya allah aniga allah igu filan wa nicma alwakiil wax la tala saarta allah u nimcay nabi muxamed sala allahu calayh wasalam marka la yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum faqshawhum gaala waa iniin tashatay waa iniin aruureen ka baqa waxa weeyaan xasbuna allah wa nicma alwakiil ay yidhahdeen nabi maxamed iyo saxaabadiisa idan qof kastoo ilaahay rumaysanoo nabi maxamed rumaysan nabiyullaahi ibraahim dariiqiisi inuu raacaa la rabo taasaa laga rabaa oo waa maxay haddaad maqasho gaalaad tashatay go-aanay soo saareen qariiradiyay sameeyeen hadday qorshihii dejiyeen shaxdigay hadda soo dejiyeen waxaad tidhahdaa xasbiya allah wa nicma alwakiil khalaas intaasaa ku filan xasbiya allah wa nicma alwakiil laakiin inaad sharcido dariiqadii nabiyaalka ma shaxdaan ay dejinayaan allah daalcanayo ujeeda soo ma ogid awood weyn leh makriga ay samaynayaan waxa weeyaan waa fashilma marka waa noocaas xasbiya allah wa nicma aad ma maqasho gaalaa go-aankaas gaarto muslimku dhibayda waa in kelimadu kuu diyaarsanta oo qalbi ilaahay ku kalsoon aad ku tirahdo xasbiya allah wa nicma alwakiil qalbi ilaahay ku xiran oo ilaahay ku kalsoon waa inaad tirahdaa xasbuna allah wa nicma alwakiil xasbiya allah wa nicma alwakiil wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir bacdu salaf waxay yidhahdeen markii la sii tuurayey oo hawada ku jiray malakul jibriil u soo baxay markaasuu wuxuu ku yidhi alaka xaajatun war dan maleeda maxaan kuu qabtaa macnaha markaasuu yidhi amaa ilayka fala wa amaa min allah fa bala adiga miya wax dana kaama rabo waxba ha ii qaba amaa alle miya dan waa kaley alle badbaado asaan ka raba hadde dabkuba waa ciidan ilaahay iyadiiyaba amar alle siiyey ayadiiya ilaahay amar siiyey ilah wuxuu yidhi subxaana qaaluu gaala waxay yidhaahdeen xariquuhu ibraahiim guba wansuruu u gargaara oo u hiliya aalihatakum ilaahyaalkiinna in kuntum haddaatiin faaciliina dad wax samaynaa qulnaa waxaan nidhi yuu ilaah yidhi yaa naaru dabe kuunii noqo berdan qabow wa salaama nabadgelyana noqo calaa ibraahiima labaa kuugu bannaan calaa ibraahiima la nabadgeliyo ku tacalluji ama ka sife wasalaama nabadgelye noqo nabadgelyadaasu calaa ibrahim nabi ibrahim dushiisa ahaatay wuxuu uhi cabdullaahi ibni cabbaas haddaan alla salaaman daba dhigi lahayn qaboobay ku dhibaataynay qabow noqo marka la yidhi dabkii oo dhan qabowbu noqo haddaan alla daba dhigi lahayn nebi ibraahim nabadgeli qabowga laftiisaa dhibi lahay laakiin ilaahaya amarkaa siiyey idan dabkii muxuu gubay xargii ku xirxirna xargii waa holceen ibraahiimna waaba sida ugu raaxo badneed
korkiisa wax dhibaato ma taab meeshaas qof kastoo muumina soo tusaale uma fuqdo nabiyullaahi ibraahim diintiisa inuu ka tanaasulo muxuu ka doortay dab in lagu rido taasoo ka doortay annagana maxaa ilaahay nagu adoonsaday nabiyullaahi ibraahim aan ku dayan nabiyullaahi ibraahim aan ku dayan haddaba maanta ma u eegna dad ku dayan fiiri dab iska daaye waxa weeyaan dan yar oo adduun maanta dadkaas diinta markay u timaado qof ka mid ah dan adduun iyo hadduu arko inay iska hor imaanayaan waxa weeyaan diintiisii wuxuu diyaar u yahay inuu diinka ka tanaasulo si uu danta adduun u qaato walidaasaa tiraada 24 saacadood arkayda shiiqow meelaan wax ka baranaayayoo waa la diiday indha shareerka ma iska tuura xoogaa shaqo yaroo adduunyaan ka barana meeshii jaamacad weeye si danti adduun loo soo xasiliyo waa in diinta qayb ka mida laga taga oo lagu gadaa shiiqow meel yaraan dan ka laha baba haddeeraad maqlayda kulla saaca marka xoogaa garka ma qorqora ma qorqorxiya ma qorqora meel yar hay-ad yaraan ka shaqay rabaa hay-addi xoogaa waa dhibse garkan taagtaaganoo u eg garka ahlu sunna marka gar reer magaal ma ka dhiga ma qorxiya uu ku leeyahy soo ma jeed waa maxay wuxuu isku soo koo diinaad rabtaa inaad ka tagto maxaadna ku gada rabtaa adduunyo raalli marka makunta ilahay in hortiisa lagu soo taago adoo diinkaagii adduunyo ku gada waa intaas warka dhammeeyo yaa wax yar qofku hadduu maanta cabsado shiiqow waa cabsaday waxaa kugu dhacay muxuduraa kugu dhacay maya waa cabsaday uu leeyahy xataa cid dab u shiday male war wax yar haddii lagu xiro xay kaa dhige 10 sano xataa haddii lagu xiro iyo diin inaad ka tagtama wax la isku doorsadaan diin lagu dilo xataa iyo diin inaad ka tagtama wax la isku doorsadaan wax la isku doorsada ma marka walaalayaal waa inaanan diintayada maanta adduunyada aanan ku bedelan cabsi yar iyo ciriiri yar waa xaqiiqo inaan cabsi ciriiri lala kulmo qof maanta diin haysta waa inaanan cabsi yar iyo ciriiri yar maanta aanan ku bedelan waxa weeyaan diintayada oo aanan isdhihin ciriiriga ka bax iyo cabsida diinta barayada iska tug si aad ciriiriga iyo cabsida uga baxdo yaana isdhihin waxa weeyaan nabiyullaahi ibraahim atayashu nagu sugan nabiyullaahi ibraahim markuu diintiisii ka tanaasuli diido dab loogu riday maxaa ilaahay gaarsiiyey nabi maxamed in la yidhahdo ani tabic millata ibraahiima xaniif nabi maxamedow ibraahim raac wuxuu ahaa xaniif baadiloo dhan ka leexday seerkaasuu gaaray ka war nabi maxamed ayaa lagu yidhi sala allahu alay slam raac ibraahim ka war meesha ilaahay gaarsiiyey nabiga markaan ku sallinayno maxaa leenahay salaada dhexdeeda allahuma salli calaa muxamadin wa calaa aali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahim ilaahayow nabiga waxaad ugu sallidaa nabi maxamed sidaad ibraahim ugu salli ibraahimna waxaa laga dhigaa mushabbahu bihi darajada sarrayda wey ka war heerkaasaa ilaahay gaarsiiyey heerkaas ayaa ilaahay gaarsiiyey marka annagana qad kaanad lakum uswatun xasanatun fii ibraahim marka nabigeennana waxaa la amray nebi ibraahim inuu ku daydo annagana waxaan ma'muuriin ku nahay nebi ibraahim inaan ku dayano marka waa xaqiiqo siduu nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam aakhiru zamaana la joogaa qofka diinta haystaa wuxuu la mid yahay dhimbil daba qof gacanta ku hayo wallaahi diin saxiixa maanta adoo haysta dhib inaad la kulmaydo dhib waa la huba inaad arkaydo diin saxiixa adoo haysta maxaa yeelay diinka saxiixa waxa weeyaan inta haysataa yar waa ghurabaa ayagiya hariib ah soo ma jeedid ghurabaa weeye dhimbil daba marka haddaad haysato waad ku dhibtoonay soo ma haddaad tuurtana khalaas dabla-aanatay soo ma idan marka laba shay waa inaan kala doorannaa diinka oon dhib ku haysanno iyo xanuun iyo inaan turno labadaasaan kala doorayna oon moodno afar beri inaan raaxaysano cadaab allena uu ka dambeeyo waxaa la qaata marka inaan xanuun ku hayno nagoo naloo dhibayo aan hayno oo aan ilaahay raalli ahanshadiisa ku gaaro taasaa la qaata ilaah wuxuu yidhi subxaana wa araaduu gaalo waxay la dooneen bihi ibraahiim kaydan hagar dhib ayay la dooneen sirqool waa maleegeen gaalo fajacalnaahum gaaladii waxaan ka dhignu ilaah yidhi alaksarina kuwii khasaaro badan makrigoodii miyay ku guulaysteen maya wixii tol dhan qabiil dhan ah intaa shidaaya dabkaas khalaas waxba kama soo bixi idan marka fiiri adiga inaad juhdigaaga isku badbaadido waxaa kaaga wanaagsan ilaahay inaad ku tiirsanaato ilaahay adduunkana isagaa ku badbaadi kara oo xoog leh aakhirana isagaa ku abaalmarinaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed